بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دمان كسوق بقلياش وسلامتهن مامولك قبل كا شركة الضعل مامولك الدقموين كهل كان جو يو ضياش دقن كجناح ستة كسوق بقلياش دمان وسلامتهن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب وما أنتم مالين وين أي نقطة هاي هدانا مامولك قبل كبنادر وحان مارج وجوجنا مناسبة aan ku dhagax dhigayno oo aan jaayga dhignay dib u dhiska iyo dib u dayactirka wadada Zobe yaani ay maartay burbur weyn soo gaaray roobabkii lixaad kale ay magaaladan ka daay sidaan hore u ballan qaadnay annagoo fulihayno awaamirtii tilmaamaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ah in shacabka magaalada mar walba lala garab taagnaado adeegyo dhinac kasta leh hadday ahal dhinac waxbarasho dhinac caafimaad iyo dhinac dib u dhiska magaalada halkan sidaan hore u ballan qaadnay waxaan saakay dhagax dhignay dib u dayactirkii wadada Zobe isla waxaan rajaynayaa isla caawaba inay shaqadan bilaabatana shirkadii waxaan ka rabnaa aan kula heshiinay oo si wanaagsan oo sharaf leh oo tayo leh na ay u dhisantay hadii Ilaahay yiraahdo wadooyinka aan dhisi doona ma noqon doonaan kuwa roob hal mar hadoo roob yimaado duduma oo burbura ma noqon doonaan insha Allah taala wadooyin marka horena laga soo heshiiyay la soo injineeray intay dhismaha socotana isha lagu hay doona hadii Ilaahay yiraahdo damaanad iyo warantina leh oo anaga iyo shirkadda aan ku heshiin hadii Ilaahay yiraahdo ayaan dhisi doonaa ma noqon doonto wadadan kali ah wadada muhiim ah dabcan sala socotaan dhowr degmo ay isku xirtaa isu socodka magaaladana muhiim ayay u tahay wadadan waxaan noogu xigi doona wadooyin waaweyn oo maalmaha soo socda iyaduna la dhagax dhigi doono maalmaha xurriyadda waxaan halkaa idina ka cadeynayaa insha Allah taala wadadii shaqaalaha oo idina burbur weyn soo gaaray in dib degdeg loo dhisi doono hadii Ilaahay yiraahdo dhowr maalmood ka hor ahayd markaan ku dhawaaqay in Zobe aan dhisayno waa kan maanta waa dhisayna insha Allah taala haddana halkan waxaan ugu sii dhawaaqayaa si aan u xujowno oo mar walba ay shaqaba mid ay noo dhiibto shaqaba mid labaad ay noo dhiibto wadadii shaqaalaha ayaan dhisi doonaa insha Allah taala oo maamulka gobolka Banaadir dawladda hoose xamar ay dhisi doonto hadii Ilaahay yiraahdo wadadaas oo waliba buunda casriya loo sameey doona hadii Ilaahay yiraahdo kaliya waxaan sugu haynaa in oo yaani la dayactiro bi xireenkii ii sheeg warti siigaale ayaan sugu haynaa in maaragtay horta si casri ah iyada laftirkeeda loo nidaamiyo oo loo diyaariyo oo loo dhiso kadibna wadadaas ayaan dhisi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo annaga shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool waxaan ballan qaadaynaa maadaama aan canshuur idinka qaadno in aan mar walba shaqaalaha iyo birig mataqaana howlwadeennada markaan mushaar siina kadib ay birig mataqaana waxa la idinka qaado intooda badan ay idinkeedii ku soo noqdaan oo wadooyin la idinku dhiso oo maaragtay isbitaalo la idinku dhiso oo iskuulo waxbarasho lacag la'aan la idinku dhiso oo macallimiin la idinku tababaro oo mushaar la idinku siiyo oo nadaafadda iyo bilicda magaalada iyo nadaafadda looga shaqeeyo oo dhalinyarada iyo ganacsatada yararka shaqo loogu abuuro hadii Ilaahay yiraahdo oo maaragtay masaakiinta magaalada laga daryeelo iyo dadka baahiyaha gaarka qabo hawshaas ayaa noo taala annaga waxaan halkan ka cadeynayaa annaga manihin hay'ad khayriya waxana hay'ad dawliya oo dadku u adeegto mana bixina lacag ceyr ah annaga lacag ceyr ah ma bixino lacagta aan idinka qaadno qaarna adinka wax idinku qabahaynaa qaarna dadka shaqada qabahayaan mushaar ku siihaynaa sidaas aan noo ballan ah shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay 4 bisha lixaad ayaan xilka la wareegay wali bilno ma dhamaanin hawshina way socotaa waad arkaysaan isha nagu haaya waxaan qabahayno fiiriya dib u socod iyo birig mataqaana isbaariisteena warkiisa ha dhageysanine shaqada aan idin qabahayna mar walba isha ku haaya iyaduna qiimeeya shaqada iyada hadlayso nagulana xisaabtama hawsha aad noo dhiibateen hadii Ilaahay yiraahdo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala barakaatuh.